Toban ka mid ah ciidamada maamulka Puntland ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax shalay ka dhacay dhulka buuraleyda ah ee degmada Bari, halkaasi oo ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Daacish. Qaraxyada lala bartilmaameedsado ciidamada maamulka Puntland ee ka dhaca deegaanadii horey looga saaray kooxda Daacish ayaa caqabad weyn ku noqday hanaanka looga sifeynayo Daacish deegaanada maamulkaasi. Puntland ayaa ku weyday ciidamo iyo saraakiil sarsare ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka duqeymo ka dhacday maamulkaasi, waxaana dadka reer miyiga ah qaarkood lagu eedeeyey in ay gacansaar dhow la leeyihiin kooxda Daacish fududeynta qaraxyada lagu bartilmaameedsado ciidamada maamulka Puntland. Tira ka mid ah shakhsiyaadka lagu tuhmay in ay fududeeyeen qaraxyada lagu bartilmaameedsado ciidamada maamulka Puntland ayaa hadda ku xiran magaalada Boosaaso.